maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday canshuur cismaan abuukar cumar iyo maxamed cali barrow aadan. canshuur cismaan abubakar cumar 22 sano jir ah ina faadumo aadan cusmaan kuna dhashay gobolka shabeellada dhexe. maxamed cali barrow aadan 25 sano jir ah ina xaawo cawil mursal kuna dhashay magaalada baydhabo. markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 20kii bishii saddexaad 2019 kuna xukuntay dil toogasho racfaanlayaasha, maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in canshuur cismaan abuukar cumar iyo maxamed cali barrow aadan ay yihiin dambiilayaal galay dambiyadii lagu soo ogay, waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho ah qisaastii marxuumiintii ku geeriyooday qaraxyadii iyo weeraradii ay ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho, sida uu sheegay sareeye guuto Liibaan Cali Yarow, gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya.